Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waxaan bilaabaynaa course research methodology. Marka hore fikir marka researchiga la sameynayo waxa laga bilaabaa waxa laga bilaabaa in design-kii aad go'aansato oo aad dooran lahayd mise waxa laga bilaabaa data collection-kii mise waxa laga bilaabaa literature review. fikir maxaad ka bilaabi lahayd. researchiga waa cilmiga ugu weyn, waa mother of the knowledge ee qofku uu barto. diyaarinteedana aad iyo aad ay u sahlan tahay haddaad fahanto. Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdifataax Abuukar Nuur Injineer Kiisi oo haysta Bachelor Accounting Camuud Master Finance oo Kampala su'aalaas waxaan ahay consultant. course-kan waxaan qaadanaynaa buugga uu qoray CR Kothari. course-kan intaan ku guda jirno waxaan qaadan doonaa qualitative research, waxaan qaadan doonaa quantitative research, applied research, waxaan qaadan doonaa descriptive research, good research, bad research, the motivation of research. sida jiyaasaas oo dhan waxay yihiin researchiga fiican, researchiga xun, waxaa kugu dhiirigelinaya inaad research samaysid. applied research maxaa la dhahaa ayaan course-kan ku qaadan doonaa. waxaa kaloo course-kan ku qaadan doonaa sidee loo diyaariyo researchka, habkee, sidee u kala horeeyaan, topic in la doorto, background-kii laga sheekeeyo, ujeedada la qoro, hadafka la qoro, maxay su'aalaha isweydiiyo, literature review la qoro, methodology, data collection, sida u kala horeeyaan process of research ayaan course-kan ku qaadan doonaa. waxaan kaloo course-kan ku qaadan doonaa tiiska see loo qoraa. waxaa isweydiinaysaa tiiskee loo isticmaalaa, waxaa isweydiinaysaa meeqa page ugu fiican tiiska marka la qoraayo, fontsaskee la isticmaala, kalkee la isticmaalaa, halkeed ka keenaysaa waxa aad diyaarinayso. marka ardayga kasto ee course-kan barto waxaan ugu talagalnay inuu research qori karo, uu diyaarin karo. insha Allah intaan ku guda jirno course-kan ayaan ku qaadan doonaa sida loo diyaariyo iyo examples ayagoo raacsan mid kasta, chapter kasta iyo example-kiisa iyo sida loo sameeyo ayaan course-kan ku qaadan doonaa. insha Allah soo dhawaada, welcome.